farmaajo maryaxaan ama daarood keliya taageero may waxaa taageerto qabiilada Soomaaliya dhan ama farmaajo taageerto marka waxyaabaha in la isweydiiyo mudan yacni dawlad qabiil lagu dhisay inay marnaba fiicnaanin waxa waaye qof walba ogtahay maanta qaadkii markii la fasaxay dad qaar oo xamar joogo oo la og yahay way farxeen macnaa cid ay qabiil yihiin cid ay ku aftirsan cid walba waa taqaanaa farmaajo dalkan muxuu ku soo kordhiyay marka dad baan in isweydiiyaan waaye farmaajo garoomada caalamka camal oo ka dhigay garoonka cadde dalka dhan uu hagaajiyay dekada Muqdisho sidee ahaan jirtay sida laga dhigay cid walba waa ogtahay walaalayaal qabiilka naga daaya haddii Soomaaliyada ay jirto wadankeena anaga iska leh anaga sameeysanayno war dhalinyaro kaca dalkan haloo kaco yacni waxaan hoos oo waxa waaye oo shooshood la wado cid walba fahmi kartaa Soomaaliya Israa'iil adduunka soo socotay idan kale way marka Kenya dagaal qaawan oo kafoola way dhowrkiisana hadda u dambeeyay in ku haysa diyaaradaheeda habeen walba garaacaya gobolka Gedo garaacaya dhul dhan bay waxay haystaa cunaduub oo jubooyinku hadii lala hadlaba waxa weeye Jubbaland bay cunaduub haysataa oo waxa weeye ummadii ku gol qabateynaysa madaxweynaha macdaba marka horta intaan qaad la saxeexin intaan waxa soo dhan la saxeexin ugu horreyn waxaan aaminsanahay madaxweynuhu waa ka baaqsan karay kulanka sloganka madaxweynuhu adeegsaday adduunka heshiisa dad wada heshiisa Soomaaliya heshiisa dunida la heshiisa de waxa weeye dunida danay kala leedahay wadanka dantaada adigu aad ka weydid inaad tiisa oofiso heshiis kula noqoto isaga tiisa oofiso madaxweynuhu waxaad moodaa maanta sidaas inuu yeelay runtii aad baan uga xumahay kaaga sii daranta degdeg baa misana ku jiray oo xataa xukuumadda aan wali iyana aan golihii wasiirada la dhisin madaxweyne intuu degdego wadankii meel ka sarreysa oo isaga ka sarreysa ma jirto inuu heshiiskaas saxeexo 9 diyaaradood qaal oo maalinle ah in wadanka ay soo galaan gacantiisa ku saxeexo Kenya aanay waxyaalo ay samaysay cudurdaar ka bixin wixii ay sameeyay wax cudurdaar ka bixin oo arag inaysan gef wadanka iyo ummadda Soomaaliyeed ka gashay oo arag madaxweyne si yar oo sahlan intuu u tago inuu ku yiraahdo warawel maxaad rabteen waxa weeye suuqaadka ma ahayn way idin saxaa idina kalloon baan idin soo dhoofineynaa madaxweynuhu u cudur daari maayo anigu oo sifadan anigu cudur daaray waxa weeye ma aha shakhsi xilka ku cusub madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano oo hore buu xukunka soo hayay 5 sano oo mucaarad ahaa marka waa nin khibrad dawladnimo leh nin hadduu maanta cusub ahaan lahaa oo qoladii berglet candidateska ah qof cusub soo bixi lahaa oo oran lahaa loo cudur daaro laakiin madaxweyne mar wadanka soo maamulay siyaasadii arrimaha dibadda wax badan ka fahansan muddo mucaarad soo ahaa intaba weeye marka waxaan u arkaa talaabooyinka madaxweyne noocaas oo uu qaaday waa kuwa baan oran karaa uu madaxweyne ugu talagalay ayna tahay in lagu la xisaabtamo ummaduna waxa weeye uu khaladaadka noocaas cidda hadda khaladaadka kula xisaabtami kartaa waxa weeye waa baarlamaanka anigu kulay ma aaminsani ima muuqdo waxaan leeyahay maadaama madaxweyne soo saxeexay oo xukunkaasi uu dhacay oo ay saxeexeen inuu saa ku socon doona ay saa ku wadi doonaan qoladii Kenya diyaaradaha soo rari doonaan waxa yimi kalluunka loo dhoofinaya iyagu diyaaradaha way sheegeen xadka iyo intay soo saarayaan qaadka iyo waxba diyaaradu intay qaadayaan laakiin se kalluunkeenu ma cayina cidda qaadi doonta shirkadaha inaga Soomaaliya ma leedahay shirkada u habaysan oo leh maraakiibtoodii leh oo hadda u diyaar ah inay calaayoom Kenya intaasoo tan ka dejiyaan ma haysanaa taasi waa mid sidoo kale waxaan ogahay aan iyo cadaniga in xataa inta yar ay sheegtay Kenya inay loo dhoofinayo ay Soomaaliya noo soo dhoofiso kalluun noo soo dhoofiso in xitaa dawladdu falow abaanay ku sameeyeen ay ka bixi doonto intaana sadcaalkii iyo bulshada ay dibka ku haysay kulay waxba kama oran dhulkii ay habeenkii garaacaysay maalintiiba garaacaysay waxba kama oran ciidamada Kenya ilaa muddada dheer ku jooga ku soo galay nidaamka AMISOM misana aan kamid ahay waxba kama oran marka waxaan u arkaa runtii wax weyn oo abrabti ah oo dhacay oo madaxweynihii wadanka uu ku kacay khaladaad weyn oo siyaasadeed lagana baaqsan karayay xilligan waliba laga baaqsan karayay
isagoo madaxweyne laba bilood xukunka jooga ama kursiga jooga tallaabooyin noocan oo kale ah marka waxaad moodaa madaxweynuhu inuu yaro oofinayo intii ama xukunka uu imanayay meelii laga taageerayey ama xukuumadihii taageerayey oo wadamadii qaladu taageerayey in badanahoodii uu yaro oofinayo taasina dee waxay u eg tahay in danihii shakhsiga ahaa laga horraysiina danihii qaranka marka madaxweynahana waxaynu ku taageeraynaa waxa weeye waxa wanaagsan uu qabto waxaynu kaga hor imanaynaana waxa weeye waxaan ummadda iyo dalka dan u ahayn oo uu ku dhaqaaqo cidna nacayb gaara uma hayso waa madaxweyne ummadda doortay baarlamaankii ummadda metelaya baa doortay hasatee waxa madaxweyne xasan sheekh lagu xisaabin doonaa waa tallaabooyinka uu dhanka wanaagsan u qaado iyo kuwa uu dhanka u qaado siyaasad xumada u qaado intaasunbaa xisaabta inoo geli doonta oo aynu ku xisaabin doonaa waxba xukuumaddii hore barbar dhigi mayno iyadoo dimashoo ka baxday waxa weeye maanta ma taagna waxay ahaydba markaa laakse maanta dowladdan xasan sheekh baa inoo jirta xasan baa madaxweyne inoo ah wixii khalad uu galana waa sheegaynaa wixii sax uu qabtayna waa sheegaynaa hadda waxaan ku ammaanaynaa in ciidamadii uu tegey soo arkay dadkoodii la soo hadal siiyey waa wax wanaagsan oo aad u qurux badan kan uu ka dambaysiiyena waa wax xunoo aad u fool xun weeye marka intaaba waa leenahay aad baad u mahadsantihiin waxaa la yidhi niman ogaadeen beri mayd qaaday markaasuu maydkii ka dhaca mid wuxuu yidhi hadduu sii go'a awgi la gob anigu waxaan aaminsanahay xasan sheekh hadduu sii go'a hadduu sii alyacni wax dambe oo wakti lagu siiyo oo lagu taageero aanu garan maayo sababtoo ah wax isbays kastaan garan soomaalida eega wixii ugu xumaa ee madaxweyne Soomaaliya uu saxiix lahaa buu soo saxiixa oo qaanirooga waxaynu ku bedelanaa ma jiraan Kenya weli Jubaland sidii bay u haysataa diyaaradihii sidii bay gada u garaacayaan shacabkii isli sidii baa dhiiga looga shaqayaa adeerjaa siduu sheegay waa runtii isli baanti waxaa guri qurux oo lagu dhisay 10 milyan 20 milyan US dollar hoostiisana wada bulaacadii qashina waa xaafadda Soomaaliya digto kaliya waa xaafadda dhaqaalaha ugu faraha badan ka soo gala Kenya sida la sheegay markay ka timaado dikada wax weyn Mombasa waa runtii isli waad sanka qabsanaysaa waxaan dhextaa billions of dollars oo Soomaaliya leedahay cashuur waxay qaadaysan ka qaadin ka qaadin marka Kenya waa Kenya noogay say u soo dhaweysay xasan sheekhna waa arkaynay si aad u hooseysa oo aan hooseysa bay u soo dhaweysay waynu arkaynay Eritrea martay walaalaheyn Eritrea iyo madaxweyne siyaasi afwarki soo inta Eritrea inoo qabatay Kenya weligeed iska badalay inoo qabat wadankeena bay duulaan ku tahay kamay tanaasulin badii Jubaland bay doonaysaa inay qaadato qaadkii bay doonaysaa inay lacag naga qaadato shacabkii Soomaaliyeed bay duqeynaysaa kuweenkeeda gudaheeda ku wada bay runtii waxa weeye sida ariga sida xayawaanka u leeynaysaa Kenya taariikhdeeda waa naqaanaa madaxweynuhu inuu tago baaba khalad haydba Soomaalidu waxay taahdaa findicilku ma xaraan ba mise waa xalaal markaas ay xuskiisa xunba yani Kenya inuu ka digo maanta qof kasta waxa ku noqotay qalbi jab kuwa taageeray kuwii ka soo horjeeday Soomaalida dhexdhexaadka ahay qalbi jab bay ku noqotay waxaan tusaale ugu filan dhowr nin oo meesha hadda inala joogay oo runtii aad u taageeri jiray ninka odayga ah waa arkays niyad jab ka muuqda space bank galay mar dhexdaas ayagu leeyihiin qolyaha wax taageera runtii way niyad jab aad bay wax xumaay say wax socdaan marka anigu waxaan leeyahay war anigu odayga hadduu sii go'ay yaan warka laga niyad jabin runtii waxa ay wadaan xasan sheekhi groupkiisu wax kala maaha waa in dadka wadankooda la nacsiiyo waxa weeye kuwa qurbaha jooga aysan wadankoodii niyad gelin oo ay meelaha iska joogaan kuwa wadankii jooga ay ka soo qaxaan oo rajadii dhigaan saynu soo aragnay waxaasa loo dan leeyahay laakiin mid ardii sheegaya 20 milyan oo Soomaaliyeed ee wadankooda jecel ama gudaha jooga ama dibadda joogaan ka yeeli maayaan 10 maafiya oo meesha la wareegtay inay runtii wax wadanka burburiyaan marka uu difaaco waa islaamay fikradeyda arinta uu xasan sheekh maanta sameeyay waa arin horta xun anigu waxaan ka soo jeedaa NFD qaadka horta dhibaato weyn buu ku hayaa Soomaalida dhan ha ahaato Soomaalida joogto NFD Soomaaliya Ethiopia Djibouti dhibaato weyn ku haysaa
دينيا عقليا